وعبارشنتي قدر دقيقة يعني كمرمانة تيفيقة عالمية سومالي نيوز وحنو كورقلنا حالة وكسوغن yahay garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo oo labadii sano ugu dambeysay xaaladiisa laga deerinayay Ceergaabo waa caasimadda gobolka Sanaag waxa ku nool dhalinyaro aad u tiro badan dhalinyarada gobolka Sanaag 80% waa dhalinyaro ku xidhan sportiska haddaba marka aad timaadid xayndaabka garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo waxay indhaha ugu qabanayaan qashin aad u fara badan oo soo buux dhaafiyay xayndaabka garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo waxaana saaxadda dhalinyarada ka maqnaa labadii sano ee ugu dambeysay wasaaradii dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag si kastaba ha ahaatee waxa dawladda hoose magaalada Ceergaabo ku xareysan roogii cagaarna ee ugu deeqay madaxweynaha haatan xilka ka sii degaya Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo oo aan wali la dhigin halka shanta gobol ee kale la dhigay roogii cagaarna waxaana dhalinyaradan aan kula kulanay garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo ay madaxweynaha cusub ee dhawaan loo dhaarin doono Soomaaliland waa Muuse Biixi Cabdiye inuu wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha u soo magacaabo shakhsi wax ka fahmi kara dhalinyarada iyo sportiska bahdi sportska gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waxay ka mid tahay lixda caasimadood ee Soomaaliland gobolka Sanaagna wuxuu leeyahay qurba joog ciyaartooy iyo madax dawladda hoose waxa ku xareysan roogii cagaarana ee loogu talagalay stadiumka Ceergaabo run ahaantii waxaan oran lahayn stadiumkani ma noqon doono haddaan dawladda iyo madaxda iyo qurba joogtu dhalinyarada gacanta ku qaban qurba joogtii aanay u dhiiranaan dhalinyarada gobolka Sanaag wuxuu noqon doonaa ceel laga waraabiyo dadka abaaruhu saameeyeen haddii kale dawladda hoose dawladda madaxweynaha wasaaradda ciyaaraha wax ka qabo hal nin baa mushaar ka qaadsa oo sidoo kaliya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha khaasatan madaxweynaha cusub inuu il dheeraada ku eego sportska gobolka Sanaag waayo uu ka dambeeyaa gobolada kale waxaan ugu baaqayaa garoonkan waxa loo madaxweynaha Siilaanyo siiyay roogii cagaarna gobolada kale dhammaan waa loo dhigay laakiin gobolka Sanaag uu ka dambeeyaa gobolada kale waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha cusub inuu wasaaradda u magacaabo nin wax garada oo aqoon u leh ma aha in uu soo magacaabo mid qabiil lagu keenay ama reer intaas bascada u dambeysay imika ayaa gacanta laga jari doonaa runtii kii degmada Ceergaabo aragtaan inaan meesha ahayn meel kubadda lagu ciyaaro oo marka ay biyo fariistaan oo sida balliyada kale aan noqdo runtii nasiib xumo markaasi aan ka hadno gobolada kale iyadoo ay marna la soo siiyay roogii oo loo dhigay runtii waxaan ka codsanayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha inay aan ku adkeynaa dhalinyarada gobolka in markaas garoonka loo soo jeesto oo markaasi aan lagu harin dhalinyaradii asaaga ay ahayd markaasi hadalka waxaan ku soo koobayaa wasaaradda ciyaaraha iyo hadalkayga xuseeyaa in xoogga saarto garoonka cagta ee Daal Stadium runtii ka muuqdo lagu daro garoomada kale halana la gaarsiiyo gobolada وعنان عبد الرشيد علي تلفزيون عالمي Soomaali News magaalada Ceergaabo